iyo macallimiinta iskuulada magaalada Boosaaso ayaa isu diyaarinaya inay waxbarashadooda dib u bilaabaan iyadoo macallimiintana casharada ay ku bixin doonaan qaabka online-ka. tababarka la xiriira qaabka online-ka ee casharada loo marsiinayo ilmaha dhinaca internetka ayaa waxa magaalada Boosaaso hadda uga socda macallimiinta dugsiyada sare. wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yusuf Maxamuud ayaa hadaba arrintan wuxuu ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo kamid ah barayaasha bixinaya tababarkan macallimiinta. tababarkan ay qabatay jaamacadda Badcas waxa uu ahaa sidii macallimiinta dugsiyada sare loogu wacyigelin lahaa ama loogu tababari lahaa tiknoolajiyada loona dareensiin lahaa faa'iidada ay u leedahay waxbarashada. waxaan ognahay in aynu ku jirno caalamka dhan ay ku jiro dhibaato ku saabsan cudurkan ama safmarkan la yiraahdo coronavirus, marka taasoo keentay in waxbarashadii iyo isumaantikii la joojiyo. marka waqtigiina waa u soconaya, waxbarashadana waa istaagtay. marka waxaan ka fikirnay in ardayga la gaarsiiyo waxbarashada isagoo xaafadiisa iyo deegaanka uu joogo si uga faa'iideysto. marka waxaan qabanay macallimiinta tababarkan si teknolojiyada u adeegsadaan ardayda ay u gudbiyaan maanta casharadii. qaabka ay macallimiinta uga faa'iideyn karaan habkan teknolojiyada ku tababarteen maxaa naga fahansiin ka dhaa muxuu yahay? tababarka laba qaybood ayuu isugu jiray. qayb waxay ahayd horta bal si guud in muhiimadda ay leedahay waxbarashada marka loo eego teknolojiyada ama teknolojiyada muhiimadda ay u leedahay waxbarashada si uu horumariso iyo caalamka maanta meesha uu marayo iyo ardayga la rabo in wax la barayo mustaqbalka sidee noqonaya. software muhiim ah oo macallinku online uu ardayga casharkii uga faa'iideynayo ayaanu ku tababaraynay. runtii isagoo gurigiisa jooga ardaygii ayaa macallinka halkaas si maqal iyo muuqaal leh uu la wadaagaya casharkii. marka runtii natiijo fiican baa nooga soo baxday. tababarka markaan dhammaynay kadib macallimiintii ay qaateen waxaan qorsheynaa insha Allah dugsiyada dhexana in oo si maartay loo gaarsiin karo in waxbarashada oo socota dugsiga hoose dhexe sare ilaa jaamacad. tababarka waxaa nooga horreeyay macallimiinta jaamacadda laftooda ayaanu ku tababaraynay sidaan oo aanu ku dhiirigelinay. marka faa'iidadan waa ay jirtay laakiin teknolojiyada intaan ka ognahay baa iska yareed ama muhiimadda la siinay. marka dhibaatada dhacday ayaa dareen keentay dadkii si wax loo gaarsiiya. saasaa marka teknolojiyada in laga faa'iideysto keentay iskuulaadkii. maxaa ku doorateen marka inaad macallimiinta tababaradan u qabataan iyadoo la heli karo ardadii ay joogaan magaalada Boosaaso welina aysan waxbarashadoodii ay xiran yihiin oo aysan iskuulaba aadin? marka wada macallinka la rabo inuu ardada maartay aqoonta u faa'iideeyo. saa wada ognahay waxbarashadu circle weeyaan, waxay ka kooban tahay saddex rukun oo waaweyn oo macallinka iyo ardayga wax baranayay iyo manhajka ee ardaygu baranayo. waxaa markaas soo afareeya biy'ada ama deegaanka wax lagu baranayo maamulkii iyo iskuulkii ah. marka maadaama macallinku u yahay meel muhiima manhajka gudbintiisa iyo ardayga in maskaxiisa la dhiso aqoontiisa la dhiso waxaanu ka bilownay macallinka in horta bal arrinta la dareensiiyo xirfadii maartay lagu daray. waxaan noo soo baxay runtii macallimiinta in badan oo ka mid inaysan baarintaan la socon oo gaabis weyn u jiro. runtii annaga waxaan ka bilownay macallimiinta iskuulaadka maadaama ayaga laga rabo inay casharkii gudbiyaan. waxaa kaloo noo soo baxday ardada laftooda inay ka hormarsan yihiin macallimiintii in badan oo ka mid ah oo ay ka warqabaan teknolojiyadda oo hadda waxaa la yidhahdaa oo jiilkii la dhashay teknolojiyadda. marka ayagu inta badan moobeeladii smartka wataan wax weyn oo xataa ku baxay kharash badan maaha. arday moobeelkiisaas wax walba cashar ku baran karaa, waxna kula xiriiri karaa. internetkiina waa raqiis runtii. marka waa arrintaas saas uga socota weeyaan. isticmaalku way kaga badan yihiin oo dee inta badan dhalinyarada social media ku jira waana wax maartay mar walba ay aad u isticmaalaan. saa darteed marka xataa waxay tahay qaab tarbiya ah oo ardada loo jiheeyo aaladan teknolojiga dhan wanaagsan oo loo adeegsan karaa dhan xun oo loo adeegsan karaa. marka dhankii wanaagsanaa waxbarashada in horumarka naftooda ku dhisaan ayay daaran tahay arrintan. qaabkan online-ka ee dhalinyarada wax u baran doonaan qaabkan online-ka ee dhalinyarada wax ku baran doonaan oo macallimiinta ku tababarteen idinka laftigiina macallimiin ahaan iyo jaamacad ahaan oo tababarkan bixinaya dhalinyarada qaab online wax lagu baro ma ka fikirteen internetka yaala magaalada Boosaaso oo kale? inta badan dhalinyaradu waxa ay ku shubtaan lacago moobiladooda badankoodana ma awoodaan in shirkadii ka soo iibsadaan internet ay guriyahooda ku xirtaan. marka soo keeni mayso dhibaato inuu ardaygu uu fahmi waayo oo khadku uu ku adkaado isticmaalkiisa inuusan awoodi karin inuu lacag intaa leeg oo ku shubto oo helo intaas oo GB oo khadku uu noqon karo mid maxay u sahlanaad in casharada toos kala socdo. taas ma ka fikirteen macallin dhibaatadaas? waa jirtaa dhibaatada xagga waxyaaba challenge teknolojiyada ay leedahay. waxaa kamid inaan la heli karin internet high speed ee Soomaaliya inkastoo ka fiican tahay wadamo badan laakiin haddana wax weeyaan dhaqaale la'aan waa iska jirtaa.
oo qaali baa laga yaabaa internetka uu noqdo speedkiisii loo baahnaana uu yara adkaado culays noqdo gaar ahaan welibana dadkii markaa daliyay xaafadooda ku shaqeeyaan shirkadihii iyo hay-adihii iyo dhammaan dadkii goobihooda loo aadi jiray maxaa la yidhaha shaqada inta badan waa la fasaxay guryaha dadku shaqaynayaan ama dadka guryihiiska jooga marka maaweele bay internetka u haystaan ama maxaa la yidhaahdaa daawasho ay daawanayaan waqtiga ay maaragtay inay ku qaataan ay rabaan dhankaana kuwana shaqi ku hayaan marka taas culays badan bay u keentay shirkada ayaama waxaan dareemaynay culays xagga technology internetka oo baaxaddii inta ay balaaratay iyo isticmaalkii shirkadii laftoodii intay hayeen wax ka badan baa kusoo baxay runtii waxbarashadeena wax asaasiya weeye marka waxaa qabad jirta weeyaan ardayga laba dhibaato haysata midna waxa weeyaan waa internetka oo aan meel isku hadlayn karino speedkiisa iyo awoodiisa labo haddana lacagta saddex technologyga qalabku isticmaalayo sida smartphone oo kale ardayda qaarkood ma haystaanba waalidiintu ma awoodaan inay galaan mobiiladan qaaliga oo kale qaarna way haystaan marka waan iska ku faankacaynaa dee duruufta aan joogno baynu noolnahay annaga waxaan ku dadaalanaa farsamo ahaan inaan u caawino tababarkan macallimiinta la siinayo si ay ardada aqoonta u gaarsiiyaan kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan oo ah bare ka tirsan jaamacadda badda cas oo u waramayay wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf wali Washington ayaad naga dhageysanaysaa